Cristiano Ronaldo xidiga kooxda kubadda cagta Al Nassr iyo xulka Portugal ayaa si rasmi ah u daahfuray kanaalkiisa YouTube oo loogu magac daray UR Cristiano. Daafurka ayaa noqday mid mucjiso ah iyadoo malaayiin qof ay iska diiwaan galiyeen saacado gudahood kuwaasoo si toos ah ugu biiray dadka taageera halyeeyga kubadda cagta reer Portugal ee CR7. Ronaldo ayaa kanaalka UR Cristiano ku soo bandhigay 19 muuqaal oo gaar ah kuwaasoo badankoodu ka hadlayaan noloshiisa gaarka ah iyo tan qoyskiisa. Waxay ahayd arrin la yaab leh in 16.9 milyan oo qof ay ku soo biiraan kanaalka 17 saac gudahood. Tani waxay keentay in saxaafadda caalamka ay si weyn u hadalhayso mucjisada uu Ronaldo ka sameeyay mareegta YouTube-ka. mucjisadaas ayaa noqotay mid ay dadku si weyn uga hadlayaan gaar ahaan marka la eego isbarbardhigga loo sameeyay Ronaldo iyo xidiga kale ee caanka ah ee Lionel Messi. Waxaa si weyn loogu mahadsaday Messi kaasi oo ah ciyaaryahan weyn oo la xifaaltamo Ronaldo waxaana ay ku qaadatay 18 sano inuu gaaro 2.3 milyan oo taageerayaal ah halka Ronaldo uu ku gaaray hal saac gudahood. Tani waxay mar kale adkeysay kaalinta uu Ronaldo ku leeyahay dunida ciyaaraha iyo baraha bulshada. Cristiano Ronaldo aan ku koobneen kubadda cagta kaliya ayaa ah hantiile heesta hoteelo, jasiirado gaar ah, maraakiib iyo diyaaradaha gaarka ah. Ku biirista YouTube-ka waxay u muuqataa inay qayb ka tahay qorshihiisa ballaaran ee uu ku horumarinayo magaca iyo sumcadiisa dunida dhijitaalka. Ronaldo ma aha kaliya ciyaaryahan balse sidoo kale waa shakhsi caan ka ah ama kan ugu taageeraha badan mareegta Instagram halkaas oo uu ku leeyahay in ka badan 600 oo milyan oo raacayaal ah. Waxaa la rumaysan yahay in adeegsiga baraha bulshada ee noocan oo kale ah ay qayb weyn ka yihiin ilaha dhaqaalaha ee Ronaldo iyadoo shirkado waaweyn ay malaayiin dollar ku bixiyaan in uu ka furto kanaalo ama akoonada baraha bulshada maadaama uu leeyahay taageerayaal aad u fara badan oo dunida daafaheeda ku nool. Ronaldo ayaa hadda u muuqda astaan caalami ah oo isbedelka cusub ee tiknoolajiyadda la jaanqaaday waxaana uu muujiyay inuu yahay hogaamiye ka dhisan dhinac walba haddii ay tahay ciyaaraha, ganacsiga ama baraha bulshada. Waxaan la filayaa in kanaalka UR Cristiano uu noqdo mid ka mid ah kuwa ugu caansan YouTube-ka isagoo taageerayaashiisu u sahlaya inay la socdaan noloshiisa gaarka ah iyo howlihiisa kala duwan. Haddaba adiga muuqaalka daawanaya sidee u aragtaa sida xawliga ah ee uu Cristiano Ronaldo kanaalkiisa ku socda mase is leedahay Ronaldo uu noqon karaa kan ugu taageeraha badan barta YouTube saacado gudahood. hana hilmaamin inaad muuqaalka like saarto oo sii share kareyso sidoo kale aad ku soo biirto boggan Salim Al Adala.